biyey Soomaaliya qodobada maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo maanta u safraya dalka Djibouti iyo shir heerkiisu sareeyo oo ka furmaya wadankaasi hadaba waxyaabaha shirkaasi looga hadlayo waxa ku jira khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya Ethiopia oo u ololeynaysa in madaxda IGAD ay la saftaan Soomaaliya kana soo horjeestaan Kenya ilaa iyo heerkee ayuu gaarsiisan yahay in Soomaaliya ay ku guuleysan doonto dacwadda horta la goboleedka IGAD xogo iyo warbixino aan idinkaga soo ayaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Muqdisho ciidamada ammaanka dawladda oo heegan sare ku jira iyo mucaaradka oo abaabulaya dibadbaxyo kale kadib markii la fashiliyay isku dayadoodii hore wararkeena kalena waxa kamid ah hay'adda NISA oo sirtaa ku sameysay munaasabad uu Muqdisho ku qaban lahaa mid kamid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha maxay tahay tuhunka ay heleen ciidamada ammaanka ee xafladaasi lagu joojiyay xog faahfaahsan ayaan idiin soo gudbin doonaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo ka dacweeyay ama ka dacweynaya maxkamadaha dalka hadaba muxuu yahay dambiga uu galay ee loo haysto madaxweynaha iyo warar dheeraad ah oo ka soo kordhaya safarka ra'iisul wasaare Roble uu ku marayo degmooyin ka tirsan Galmudug qodobadaas in ku faahfaahin doona barnaamijkeena insha Allah waa subax Jimcaha 18 bisha 12 ee December sanadka 2020 barnaamijkan wararka Soomaaliya oo midaan ku soo gudbinayno dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin taasna la fahantaan fadlan la faafiyo wararkan oo gaarsiiyay saaxiibadiina adinkoo ku shargareynaya baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in maanta oo Jimcaha uu socdaal ugu baxo dalka Djibouti xilli xaaladda siyaasadeed ee dalka ay kacsan tahay madaxweynaha ayaa Djibouti uga qayb galaya shir madaxeedka urur goboleedka IGAD kaas oo looga hadli doono xaaladda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya oo dhawaan ay qabsadeen ciidamada Abiy Ahmed ee ay markaasi dagaalka kula wareegeen oo ay kagala wareegeen kooxda TPLF shirkaas ayaa waxa sidoo kale looga hadli doonaa ashtako ay Soomaaliya ka gudbisay Kenya oo ay ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya iyo tallaabadii dhawaan dawladda Soomaaliya ay xiriirka ugu jirtay Kenya ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdulla Hamdok ayaa hadii boqosho ku tagay Addis Ababa waxa uu sheegay in isaga iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia isku raaceen shir degdeg ah oo looga hadlayo dhibaatada ka jirta Tigray sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa 13 bishan sheegtay in iyada oo laga jawaabayo dhambaal ka dhan ah Kenya ee ay dawladda federaalka Soomaaliya u gudbisay mudane Cabdulla Hamdok in shir madaxeedka lagu qaban doono Djibouti 20 December ay looga hadli doono arinta u dhaxaysa labada dal Soomaaliya iyo Kenya ayaa xaaladoodu meel adag ay maraysa waxana dawladaha gobolka laga doonayaa inay soo farageliyaan safarka madaxweyne Farmaajo ee Djibouti ayaa wuxuu ku soo abaarmaya xilli ay xaalad siyaasadeed oo meel xasaasi ah marayso ay dalka ka jirto isla wararkan ayaynu dhex jibaaxaynaa Ethiopia ayaa waxa ay u ololeynaysaa in madaxda IGAD ay la saftaan Soomaaliya wararku waxay sheegayaan in wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Ethiopia iyo xogayaha urur goboleedka IGAD oo Ethiopia ka soo jeeda in ay aad ugu ololeynayaan in dawladda Soomaaliya ay taageero weyn hesho marka uu furmo shir madaxeedka IGAD 20 bishan wararku waxa ay intaa ku darayaan in dawladda Ethiopia ay aad u danaynayso in marka cod loo qaado lagana doodo qadiyada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya in badi madaxda shirka ka qayb galaysa ee toddobada wadan ee urur goboleedka IGAD in ay la saftaan Soomaaliya isla markaana Kenya loo sheego dhibaatada iyo faragelinta ay ku hayso Soomaaliya iyo inay meel ka dhac ku sameysay madax banaanida iyo qarannimada ee wadankeena Soomaaliya Ethiopia oo saaxiib siyaasadeed oo dhow la ah dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hadii qorshahan ay ku guuleysato waxay ku muujinaysaa in ay Kenya kaga adag tahay Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Ethiopia ayaa isku mowqifka arrimaha Jubaland waxaana la doonayaa in siyaasad adag lagu wajaho Kenya oo gabaad iyo taageero ciidan basiinaysa madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe oo dawladda federaalka Soomaaliya ka soo horjeeda wixii warar ay ku soo kordhay shirkaasi wararkeena dambe ayaan ku soo gudbin doonaa markana aanu fiirino xaaladda guud ee magaalada Muqdisho saaka magaalada Muqdisho wax lagu waabariistay jawi degan oo nabdoon iyadoo ay tahay maalin Jimcaha oo ay iskuulada
goobaha shaqada sidoo kale iyo meelaha guud lisugu yimaado dadka ay xiran yihiin. haddana ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk Soomaaliya ayaa heegan sare ku jira oo lagu arkaya wadooyinka iyagoo si aada ula socda xaaladda dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyo meelaha dadku isugu imaanayaan. ciidamada ayaa ka feejigan in magaalada ay ka dhacaan mudaharaadyo rabshado wata oo ay mucaaradku abaabulayaan, kuwaas oo baryihii lasoo dhaafay ay mucaaradku doonayeen inay ka dhigaan Muqdisho, laakiin ciidamada ammaanku ay ka hortageen. wararku waxay sheegayaan in mucaaradka dhankooda ay wadaan abaabullo ay ku doonayaan in ay si kastaba ay ku qabtaan mudaharaad dowladda ka dhanaa oo weyn oo ballaaran. laakiin dowladda federaalk Soomaaliya iyo ciidamada ammaanka ayaa aad isugu xilsaaraya in xitaa haddii dibadbaxyo nabdoon ay dhacayaan la ilaaliyo badqabka dadka iyo amniga guud ee caasimadda. ciidamada ammaanka dowladda federaalk Soomaaliya ayaa lagu arkaya guud ahaan caasimadda, gaar ahaan baraha muhiimka ah ee amniga magaalada laga sugo. xaalka guud ee ammaanka ayaa ah mid aad loo adkeeyey. wasiirka amniga dowladda federaalk Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda ay iska xil saarayso sugidda amniga iyo ilaalinta, isagoo dadka uga digay in ay markaasi ka qayb qaataan buubuuninta wararka lidiga ku ah amniga iyo xasiloonida, kuna baaqay in amniga iyo wadajirka ummadda la ilaaliyo. dhinaca kale haddii aynu fiirino wararkii ugu dambeeyey xaaladda, haddii aynu fiirino ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk Soomaaliya gaar ahaan hay-adda NISA ayaa waxa ay xaflad ka joojiyeen mid ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha. xafladaas oo xildhibaan Mustaf Dhuxule oo ah musharax madaxweyne uu ku qabsan lahaa hotelka Afrika oo ku yaala agagaarka isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho ayaa la joojiyay, balse waxa uu sheegay Mustaf Dhuxule in markii ay bilaaban rabtay xafladda ay ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa nabad sugidda ay joojiyeen. Mustaf Dhuxule ayaa arrintaasi toos ugu eedeeyay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. isagoo oo hadlayay ayaa waxa uu si cad u sheegay in doorashada dalka ay markaasi dhacayso si loo ogol yahayna ay ku dhacayso, isagoo sheegay inaan marnaba la ogolaan doonin caburin. waxa uu hoosta ka xariiqay in madaxweyne Farmaajo uu musharaxiinta ku wado caay iyo been abuur joogto ah oo uu sida uu sheegay la daba taagan yahay. sidoo kale waxa uu musharax Mustaf Dhuxulow tilmaamay in dadkii ugu badnaa oo doonayay inay isaga taageeraan ay isugu imaan rabeen halkaas, isla markaana wax amniga iyo xasiloonida dalka liddi ku ah aysan doonaynin in halkaa ay ku sameeyaan, siduu hadalka u dhigay. qaybihii dambe ee barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya ayaan isla soo gaarnay. markana aan fiirino xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo loo haysto wixii dambi ah ee dalka ka dhaca meel isla markaana meel aan la isaga hari doonin, isagoo uga digay ciidamada amniga in ay dadka shacabka dhibaateeyaan. isagoo ka hadlayay munaasabad 3 sano guuradii kasoo wareegatay weerarkii lagu qaaday hoyga hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu sheegay in aan marnaba la iloobi doonin ama looga hari doonin dadkii falkaas geystay. waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo loo doortay inuu dalka hogaamiyo wax kasta oo mas'uuliyadana uu qaadi doono. waxa uu sheegay Cabdiraxmaan Odowa in 8 February markay madaxweyne Farmaajo ka dhamaatay muddo xileedka uu dacwo ka gudbin doono madaxweynaha dalka, isla markaana uu maxkamadaha dalka kula tigsan doono isagoo u haysta dambiyada dadkii lagu laayay xarunta xisbiga wadajir ee magaalada Muqdisho. waa tahay markan aan fiirino wararkii ugu dambeeyey ee safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku sugan magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, halkaas oo kulamo kala duwan ka wado. ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu saacadii la soo dhaafay kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, isagoo uga mahadceliyay isxilqaanka iyo sida ay uga shaqeynayaan nabadda iyo wadajirka ummadda Galmudug iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale xalay kulan casho sharaf lagu sameeyay magaalada Cadaado xarunta waa markaasi ee gobolka Galgaduud, iyadoo halkaa ay ka qayb galeen dad kala duwan. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa uga mahadceliyay shacabka Galmudug gaar ahaan reer Cadaado iyo dhammaan dadkii munaasabadaas ku casuumay. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa safarkiisa Galmudug wuxuu u muuqdaa inuu ka duwan yahay kii Puntland, isagoo oo ra'iisul wasaaruhu waxyaabo badan oo la xiriira doorashooyinka guulo waaweyn ka soo hooyay marka la fiiriyo dhinaca Galmudug. si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la filayaa inuu aado dhanka iyo Jubbaland si uu arrimaha doorashooyinka ula soo meeldhigo madaxweynaha Jubbaland. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. tan iyo kulanteena dambe saaxiibayaal, nabadgelyo.